dibi ayaa ku cararay wadooyinka magaalada Lima ee dalka Peru. xayawaankan caraysan ayaa jabsaday mid ka mid ah dukaamada. kamerooyinka amniga ayaa qabtay dhammaan dhaqdhaqaaqyadiisa. dibiga ayaa la sheegay in loo waday kawaanka xoolaha, balse si uu uga baxsaday gaarigii uu saarnaa. wararka maxalliga ah ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhaawacmay dhacdadan. kadib 40 daqiiqo oo la eryanayay, dibiga ayaa waxaa qabtay dadka shacabka ah, balse ma cadda waxa lagu sameeyey qabashadiisa kadib. Ya, no te preocupes, me avisas, chao, chao.